Halkan ayuu ka bilaabanayaa filimkeena maanta. Gabadhan waxaa lagu magacaabaa Ellie. Waxa ay saxarahan cidlaha ku sameynaysaa baaritaan. Dowladda ayaa u soo dirtay si ay u ogaato in goobtan lagu isticmaalo wax muqaadaraad ah. Waxaana loo soo xilsaaray Ellie inay baaritaan ku soo sameyso saxaraha. Ninkan waxaa lagu magacaabaa Gulamo. Waxa uu saxaraha ku aasaya qof uu isagu dilay. Waana maandar ka ganacsada draagiska kala duwan. Markii uu dhameeyay aasitaanka waxa uu dib ugu soo laabtay gaarigiisii. Isla markiiba qof ayuu kula hadlayaa telefoonka. Ellie waxa ay soo qaadatay gaarigeedii waxayna soo dhex maraysaa buurahan aadka u dhaadheer. Waxay ku jirtaa baaritaankii loo diray ilaa markii dambe Ellie aragtay gabadhan. Way isla hadlayaan ilaa markii dambe gabadhii u timi kuna tiri waxaan ka imid dhanka magaalada. Gabadhanna waxaa lagu magacaabaa Alex iyo Ellie way sheekaysanayaan waxaana dhex maraya wada sheekaysi ilaa markii dambe ay halkan soo fariisteen. Waxay u sheegaysaa inuu aabaheed booliis yahay hooyadeedna ay dhimatay. Sidoo kale Ellie waxay u sheegaysaa inay halkan u timi si ay ugu sameyso baaritaan. Ellie halkan ayay soo fariisatay waxayna ku qaadanaysaa waqti. Waxayna daawanaysaa fiiyugan aadka u quruxda badan. Gaarigeeda ayay soo kortay si ay meesha uga tagto ilaa markii dambe aragtay qiiqan iyo diyaaradda halkan ku gubanaysa. Way soo ordaysaa ilaa u timi diyaaradii kadibna waxay arkaysaa ninkii pilotka ahaa u qaylinaya. Balse nasiib darro Ellie waxay aragtay inuu yahay nin draagis ah. Boorsooyinka ka dambeeyana ay ku jiraan draagis. Isla markiiba waa carartay laakiin ninkii baaskoolada ayuu la soo baxay halka Ellie ay gaarigeedii soo kortay. Waxayna isku dayaysaa inay meesha ka cararto. Ninkan waxaa lagu magacaabaa Thomas. Isla markiiba xabad ayuu ku ridayaa gabadhii ilaa markii dambe ay carartay. Gaarigii ayay isku dayaysaa inay halkan kala baxdo laakiin ma awoodo. Ellie waxay gashay xaalad muruga ilaa uu markii dambe gaariga kala soo baxay ninkii. Waxa uuna ku leeyahay waxaad iga badbaadaysaa kaliya haddii aad taqaanid maabka halkan. Waxaan rabaa inaad halkan iga saartid. Isla markiiba way ogolaanaysaa waxaan u sheegaysaa inay tahay cilmi baare ku takhasusay dhulka. Waa uu aqbalayaa. Heshiiskiina way ogolaatay Ellie. Thomas isla markiiba waxa uu dirayaa Ellie inay boorsooyinka u soo qaado. Isla markiiba boorsooyinkii draagiska ayay soo aruurinaysaa. Waxa ayna diyaar u tahay inay maqasho amar kasta uu siiyo Thomas. Isla markiiba gaariga ayuu saaray waxa uuna ku yiri soo bax. Gaariga ayay la soo raacday Thomas. Ellie oo aad u murugsan. Nasiib darro Thomas iyo Ellie waxay galeen shil gaari. Kadibna gaariga ayaa ka baktiyay. Aad ayuu isugu naxay Thomas. Waxa uuna soo eegayaa Ellie. Isla markiiba gaariga ayuu iska furay waxa uuna u degay banaanka si uu ogaado xaaladda gaariga. Ellie-na waa ay fiirinaysaa ninkan waxa uu sameynaya ilaa uu markii dambe arkay inuusan gaariga rajo lahayn. Gaariga xaggiisa dambe ayuu furay waxa uuna soo saaray boorsooyinkii oo dhan. Ellie ayuu la hadlaya waxa uu ku leeyahay soo qaad boorsooyinka waa inaan halkan ka lugaynaa. Isla markiiba boorsooyinka ayuu ku rarayaa Ellie. Aad ayay u yaaban tahay Ellie waxayna ka baqsan tahay safarkan dheer ee sugaya. Maalinnimadii ayaa la gaaray. Buurihii aadka u dhaadheeraa ayay soo lugaynayaan Thomas iyo Ellie. Laakiin waa ay ku khasban tahay wax kasta ay sameynayso. Waxayna ka badbaadinaysaa Ellie nafteeda si uusan u dilin ninkani. Halkan waxaa jooga Gulamo. Aad ayuu walwalsan yahay waxa uuna ka baqsan yahay inuu boorsooyinkii draagiska ahaa uu limiyo Thomas. Gaarigiisa ayuu soo raacay waxa uuna baadigoobayaa Thomas sidii u heli lahaa. Halkan waxaa taagan ninkan booliiska ah waana Alex aabaheed. Waxa uu qaabilsan yahay eriyadan oo dhan ilaa markii dambe telefoon uu soo dhacay. Kadibna waxaa loo sheegay in qof meyd ah lagu aasay saxaraha. Halka Gulamo diiraddan uu ku fiirinayo afartan dhinac ee buuraha. Balse Thomas iyo Ellie halkan ayay lugeynayaan waana saxara aad u adag in lagu lugeeyo. Daal iyo rafaad badan ayaa ka muuqda ilaa markii dambe Ellie ku tiri waa inaan halkan ku nasanaa. Dhulkii ayay fariisteen Ellie iyo Thomas. Kadibna boorsada ayuu furayaa waxa uuna siiyey biyo. Xoogaa yar oo nasasho ayay qaateen. Isla markiiba Thomas waa uu istaagayaa waxaana qabatay kaadii. Kadibna waa uu soo dhaqaaqayaa ilaa ay aragtay Ellie inay tahay fursad aan la heli karin. Kadibna waxay isku dayaysaa sidii halkan uga baxsan lahayd. Waa ay ka soo carartay ilaa ay markii dambe halkan ugu gabatay. Thomas oo ordayay ayay madaxa kaga dhufatay dhagaxan. Laakiin markiiba waa uu qabtay waa uuna ka awood badiyay. Way isdhiibaysaa Ellie waxaana ku leedahay dilin. Isla markiiba xarigan ayuu soo qaatay waxa uuna kaga xirayaa gacmaha si aysan uga baxsan halkan. Ninkii booliiska ah waxa uu imaanaya labada nin oo ka yimi saxaraha. Kadibna waxa uu ku leeyahay ma ku aragteen gabar lagu magacaabo Ellie. Laakiin markii waxay ku oranayaan maya. Gaarigiisa ayuu soo qaadanaya waxa uuna raadinayaa gabadhii. Ilaa uu markii dambe muraayahada ka arkay mootadan soo socota waana gabadhii uu dhalay. Ilaa ay markii dambe Alex maqashay in aabaheed uu raadinayo gabadhii lagu magacaabay Ellie. Isla markiiba waa u sheegaysaa waxay ku leedahay gabadha waa arkay. Waxa uu ku leeyahay xagee ku aragtay laakiin waa u sheegaysaa inay isku arkeen saxarahan cidlada ah. Ilaa ay markii dambe aabaheed u sheegtay hoteelka ay degan tahay Ellie. Isla markiiba gaariga ayuu soo qaatay waxa uuna yimi hoteelka Ellie degan tahay. Islaantan ayaa hoteelka haysta waxayna ku leedahay shalay ayaa nagu damaysay Ellie. Ninkan gaariga wata waa Gulamo. Waxa uu yimi meeshii ay diyaaradda ku dhacday kadibna waxa uu baarayaa boorsooyinkii draagiska ahaa. Waa uu ka samrilayaa ilaa uu markii dambe dhulka ku arkay rasaastan iyo xabadahan waana xabadii uu Thomas ku ridayay Ellie. Markiiba gaarigiisa ayuu soo qaatay waxa uuna u soo dhaqaaqay dhankii saxaraha si uu baadigoobo Thomas. Halka Thomas iyo Ellie ay dhex lugeynayaan saxarihii cidlada ahaa. Isla markiiba ninkii dhulka ayuu ku dhacay waxaana ku yaala dhaawacan oo ka soo gaaray shilkii diyaaradda. Isla markiiba waa ila hadlaysaa waxayna ku leedahay xarigayga fursi aan ku caawiyo laakiin waa uu ka diidayaa. Hore ayay u soo dhaqaaqayaan. Lugtii ayuu iskaga soo xirayaa maradan. Gaarigan waxa wata Gulamo waxa uu soo dhawaaday meeshii ay joogeen Thomas iyo Ellie. Isla markiiba gaarigiisa ayuu soo qaatay ilaa uu arkay raadka halkan ka muuqda. Gaarigan ayuu arkay meesha cidlada yaala ilaa uu markii dambe arkay dhalinyaradan mootooyinka wata oo halkan ku xariiftamaya. Gulamo markiiba dhalinyarada ayuu weydiinaya waxa uuna ku leeyahay ma ku aragteen saxaraha nin lagu magacaabo Thomas oo boorsooyin waaweyn sita. Laakiin markiiba waxay ku leeyihiin boorsooyinka madraagis ayaa ku jiray. Waa uu xanaaqayaa Gulamo ilaa uu markii dambe dhalinyaradii dilay. Saddexdoodiba halkii ayuu ku dilay. Halka uu wali askarigii
baadigoob ugu jira gabadhii loo soo diray. Waxa uuna soo dhex marayaa buurihii aadka u dhaadheeraa, gaarigiisa ayuu wataa. Thomas iyo Ellie weli waxay dhex lugeynayaan kayntii ilaa markii dambe Ellie ay dhulka fariisatay si ay ugu nasato halkan. Xoogaa nasasho ayay halkan ku qaadanayaan maadaama ay aad u daalan yihiin, safar dheerna ay soo galeen. Isla markiiba Thomas biyo ayuu kala soo baxayaa boorsadiisii, waa uuna cabayaa. Ellie waxay ka codsanaysaa Thomas inuu xargaha ka furo maadaama ay gacmaheedu aad u daaleen, laakiin waa uu ka diidayaa. Ninkii askariga ahaa weli waxa uu ku jiraa duurka, waxaanu raadinayaa Ellie ilaa uu markii dambe arkay baabuurkan meesha cidlada yaala. Baaskooladiisa ayuu la soo baxay, waxaanu soo dhawaaday baabuurkii ilaa uu arkay 3 dhalinyaro ah oo meesha lagu dilay. Isla markiiba gaarigiisa ayuu la soo cararay ninkii booliiska ahaa, waxa uuna soo qaaday wadada. Ninkii gulaamaha waxa uu wataa gaarigiisii, waxa uuna weli raadinayaa boorsooyinkiisii ka maqnaa. Halkan ayuu istaagay gulaama ilaa uu markii dambe arkay raadka halkan qof ku lugayay. Isla markiiba waa uu fiirfiirinaya, waxa uuna raadinayaa qofkan. Ninkii booliiska ahaana waxa uu taagan yahay halkan. Gulaama iyo ninka booliiska masaafo aad u yar ayaa u dhaxaysa ilaa uu markii dambe gulaama xagga sare ka arkay ninkii booliiska ahaa. Waxa uuna isku dayayaa inuu xabad ku dhufto ninkan booliiska ah. Waa uu gaatamaya gulaama, isaguna waxa uu raadinayaa qofkii iska lahaa baabuurkan. Waxa uuna ogaaday inuu yahay dilaagii 3 qof dilay ilaa uu markii dambe buurtan soo koray. Gulaamana waa uu arkaa ilaa uu markii dambe gulaama xabad ku dhuftay ninkii askariga ahaa. Ninkii booliiska waa uu iska difaacaya xabadda gulaamo ilaa uu markii dambe ka cararay. Intii uu ordayay ayuu ku dhacay godkan aadka u dheer. Gulaamana waa uu dul yimi, waxa uuna arkay ninkii inuu dhintay, godkana uu ku dhacay. Waxa uu aaminsan in xabadihiisii ay dileen. Alex way walwalsan tahay, waxayna weysan tahay aabaheed maadaama uu saacado badan guriga ka maqan yahay. Halka Ellie iyo Thomas weli ay ku rafaadsan yihiin buurahan aadka u dhaadheer. Ellie waxay u imaanaysaa Thomas, waxayna ku leedahay ma kori karo buurahan aadka u dhaadheer, waana khasab inaad gacmaha iga furtaa. Ilaa uu markii dambe ka aqbalay, laakiin shuruud ayuu ku xiray. waxaanu ku yiri ha isku day inaad iga baxsatid. Isla markiiba Alex waxay imaanaysaa saldhiggii uu aabeed ka shaqeynayay, kadibna mootadeedii ay halkan ku baakimaysaa. Way soo galaysaa gudaha, waxaana arkaysaa inuusan aabeed halkan joogin. Thomas iyo Ellie gabalka ayaa ugu dhacay si ay uga gudbayeen buurahan aadka u dhaadheer. Ugu dambeynna waxay tageen fikta sare ee buurta, halkan ayay dab ku shiteen, waxayna isla garteen inay caawa halka ku nastaan. Ellie ayaa weydiinaysa waxa ku khasbay inuu daraagiska ka ganacsado, laakiin Thomas markiiba waxa uu sheegayaa inuu ku khasban yahay maadaama qoyskiisu ay yihiin qoys danyar ah, xoolo badan aan haysan. Alex go'aan ayay qaadatay, waxayna raadinaysaa aabaheed. duurkii cidlada ayay soo gashay xilli habeenimo ah si ay u hesho aabaheed, balse nasiib wanaag waxay heshay gaariga aabaheed halkan yaala. Isla markiiba mootada ay ka degaysaa, waxayna firinaysaa inuu aabaheed gaariga gudihiisa ku jiro, laakiin waa ay ka weyday. waxay u soo dhaqaaqday buurihii aadka u dhaadheer iyadoo toosh ku raadinaysa aabaheed. waa ay qaylinaysaa si ay u maqasho codka aabaheed, laakiin waxay maqasho codka aabaheed waa ay soo orday ilaa ay markii dambe aragtay godkan aadka u weyn, waxayna heshay aabaheed. waxay ku guulaysatay inay aabaheed godka ka soo saarto. Ellie hurdadii ayay kasoo kaxaysaa, waxayna arkaysaa inuu Thomas hurdo. Isla markiiba waxay kala soo baxaysaa lugteeda mindidii ay ku qarsatay, kadibna waxay iska furaysaa xariggii, waana fursadda keliya ay kaga badbaadi karto Thomas. way iska furtay ilaa ay markii dambe kasoo baxsatay. ninkii booliiska gabadhiisa ayuu mahadcelinaya, waxaanu ku leeyahay aab iskaga noqo gurigaagii, laakiin waxay ka naxsan tahay inuu aabaheed ku dhinto duurkan cidlada. isla markiiba mootadeeda ay soo qaadatay, waxayna qaadatay go'aan si ay u raadiso saaxiibteed Ellie. Ellie waxay soo dhex maraysaa buurahan aadka u dhaadheer, waana ay rafaadsan tahay, laakiin nasiib darro intii ay socotay waxay aragtay gulaam oo gaariga ku jira. isla markiiba gulaam uu awrka waana isku naxayaa ilaa uu soo baxsaday gabadhii. Ellie way soo cararaysaa, waxaana soo dhex jibaaxaysaa buurihii aadka u dhaadheeraa. nasiib wanaag intii ay ordaysa waxa qabtay Thomas. isla markiiba waa isku naxaysaa, laakiin waa uu la hadlaya, waxaanu ku leeyahay ninka ku baxsanayana waxaa lagu magacaabaa gulaam, waa booska aniga iga sareeyay, waa uu ku dilayaa haddii uu ku qabto, waana iskaga carartaa halkan. isla markiiba iyadoo aad u naxsan oo fiirinaysa Thomas ayay ka cararaysaa meeshii, wayna aamin laadahay inuu Thomas badbaadiyay. ugu dambeyn Thomas iyo waxaas arkay gulaama baaskoladii ku qabanaya, waxaanu ku leeyahay aaway gabadhi, ilaa uu markii dambe ku yidhahdo gabadhii waa ay baxsatay. boorsooyinkii daraagiska ayuu ka qaatay ilaa uu markii dambe xabad wadnaha kaga dhuftay. halkaas ayuu ku dhintay Thomas. gulaama waxa uu soo qaatay boorsooyinkiisa waana soo dhaqaaqay, halka Alex ay wareegayso buurihii ilaa uu markii dambe qabtay gulaamo. waa uu soo jiidaya ilaa ay markii dambe Ellie aragtay. isla markiiba gulaama xabad ayuu caloosha kaga dhufanaya Ellie-na waxay noqotay dhaawac. gabadhii ayay kusoo badisay ilaa ay markii dambe buurta madaxa kaga dhufato. waa ay soo cararayaan labadii gabdhood, waxayna soo kaxaysanayaan mootadoodii si ay meesha uga baxsadaan. jidka ayay soo qaadayaan, laakiin gulaama waa uu soo baxsanaya, waxaana uu wataa gaarigiisii ilaa uu markii dambe gaariga xagga dambe uu kaga dhuftay mootadii. Ellie-na waxa ay ka dhacday mootadii. isla markiiba gulaama waxa uu soo furanaya caagadan shidaalka ah, waxa uuna qoorta qabtay gabadhii Alex ahayd. isla markiiba dhulka ayuu ku turaya Alex, waxa uuna doonaya iyadoo nool inuu gubo. Ellie waa isku naxaysaa, waxayna doonaysaa inay saaxiibteed badbaadiso ilaa ay markii dambe kibriid kala soo baxday halkan, waxayna doonaysaa inay boorsooyinkii daraagiska ah ay gubto. halka gulaama uu gabadhii baasiin korka kaga shubayo ilaa uu markii dambe arkay boorsooyinkiisii oo gubanaya. waa uu soo cararay ilaa uu markii dambe lugta gashtay, laakiin dabka ay ka qabsanaya surweelka, waa uuna gubanayaa gulaama weliba si aad u daran. halka Ellie iyo Alex ay daawanayaan kuna raaxaysanayaan inuu gubto. halkaas ayay kaga badbaadeen dhagartii uu la maagaanaa gulaamo. ninkii booliiska gaarigiisa ayuu soo kaxaysanaya isagoo baadigoobaya gabadhiisii. isla markiiba halkan ayuu ugu yimi gabadhiisii isagoo laabta geliyey. daawadayaal filimkeeni maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeynay. tan iyo inta iskaga imaan doona muuqaalka xiga, waxaan ka codsanayaa channelkeena subscribe saartaan, muuqaalkan aad like noo saartid. waa ku mahadsantahay markale daawashadiina muuqaalka.